Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Qaaradda Aasiya waa qaaradda adduunka ugu dadka badan waxaana ku nool ku dhawaad 4.6 bilyan oo qof, midaasoo ka dhigaysa inay hayso 60% oo ka mid ah dadka guud ahaan adduunka ku nool. Sidoo kale, qaaradda Aasiya ayaa ah qaaradda koboca dhaqaalaheedu uu si xawli ah u koreeyay sanadadii u dambeysay. Wadarta wax soo saarka qaaradda ayaa kor u dhaafaya 32 trilyan, waana qaaradda ugu dhaqaalaha badan dhammaan qaaradaha adduunka. Waxaan maanta muuqaalkeenan jawaab ugu raadin doonaa 20 dal ee ugu dhaqaalaha iyo wax soo saarka badan qaaradda Aasiya ama Asia. Waxaynu ku cabiraynaa GDP nominalka ama wax soo saarka guud ee gudaha dalka uu sanadkii soo saaro. Nambarka 20aad waxaa ku jira Iraq. Wax soo saarka guud ee gudaha dalku waa 224 bilyan waxaana ku nool dad gaaraya 38 milyan. Nambarka 19aad waxaa ku jira Vietnam. Wax soo saarka guud ee gudaha dalku waa 261 bilyan waxaana ku nool dad gaaraya 97 milyan, waana dalka 15aad ee adduunka dadka ugu badan ay ku nool yihiin. Nambarka 18aad waxaa ku jira Pakistan. Wax soo saarka guud ee gudaha dalku waa 284 bilyan waxaana ku nool 216 milyan, waana dalka 6aad ee adduunka ugu tirada badan. Nambarka 17aad waxaa ku jira Bangladesh. Wax soo saarka guud ee gudaha dalku waa 317 bilyan waxaana ku nool dad gaaraya 168 milyan, waana dalka 8aad ee adduunka ugu tirada badan. Nambarka 16aad waxaa ku jira Philippines. Wax soo saarka guud ee gudaha dalku waa 356 bilyan waxaana ku nool 108 milyan, waana dalka 13aad ee adduunka dadka ugu badan ay ku nool yihiin. Nambarka 15aad waxaa ku jira Singapore. Wax soo saarka guud ee gudaha dalku waa 362 bilyan waxaana ku nool dad gaaraya 6 milyan oo kaliya. Nambarka 14aad waxaa ku jira Malaysia. Wax soo saarka guud ee gudaha dalku waa 365 bilyan waxaana ku nool dad gaaraya 32 milyan. Nambarka 13aad waxaa ku jira Israel oo ah dalka laga dhacay walaaladeen Falastiin. Wax soo saarka guud ee gudaha dalka Israel waa 387 bilyan waxaana ku nool dad gaaraya 8.6 milyan. Nambarka 12aad waxaa ku jira UAE ama Khaliijka. Wax soo saarka guud ee gudaha dalku waa 405 bilyan waxaana ku nool dad gaaraya 9.5 milyan. Nambarka 11aad waxaa ku jira Iran. Wax soo saarka guud ee gudaha dalku waa 458 bilyan waxaana ku nool dad gaaraya 83 milyan, waana dalka 19aad ee adduunka dadka ugu badan ay ku nool yihiin. Nambarka 10aad waxaa ku jira Thailand. Wax soo saarka guud ee gudaha dalku waa 529 bilyan waxaana ku nool dad gaaraya 70 milyan, waana dalka 20aad ee adduunka dadka ugu badan ay ku nool yihiin. Nambarka 9aad waa Taiwan. Wax soo saarka guud ee gudaha dalku waa 586 bilyan waxaana ku nool dad gaaraya 23.8 milyan. Nambarka 8aad waa Turkey. Wax soo saarka guud ee gudaha dalka waa 743 bilyan waxaana ku nool dad gaaraya 83.5 milyan, waana dalka 18aad ee adduunka dadka ugu badan ay ku nool yihiin. Nambarka 7aad waxaa ku jira Sacuudi Carabiya. Wax soo saarka guud ee gudaha dalku waa 779 bilyan waxaana ku nool dad gaaraya 34.3 milyan. Nambarka 6aad waxaa ku jira Indonesia. Wax soo saarka guud ee gudaha dalku waa 1.1 trilyan waxaana ku nool 271 milyan, waana dalka 4aad ee adduunka dadka ugu badan ay ku nool yihiin. Nambarka 5aad waxaa ku jira South Korea. Wax soo saarka guud ee gudaha dalku waa 1.62 trilyan waxaana ku nool dad gaaraya 51.3 milyan. Nambarka 4aad waa Ruushka. Wax soo saarka guud ee gudaha dalku waa 1.63 trilyan waxaana ku nool dad gaaraya 146 milyan, waana dalka 9aad ee adduunka dadka ugu badan ay ku nool yihiin. Nambarka 3aad waxaa ku jira dalka Hindiya. Wax soo saarka guud ee gudaha dalku waa 3 trilyan waxaana ku nool dad gaaraya 1.37 bilyan, waana dalka 2aad ee adduunka oo dhan ugu dadka badan. Nambarka 2aad waxaa ku jira Japan. Wax soo saarka guud ee gudaha dalka Japan waa 5.1 trilyan waxaana ku nool dad gaaraya 127 milyan, waana dalka 11aad ee adduunka ugu tirada badan. Nambarka 1aad waxaa ku jira
dalka China wax soo saarka guud ee gudaha dalku waa 14.1 trilyan waana dalka adduunka ugu dadka badan waxaana ku nool 1.44 bilyan oo qof waana dalka labaad ee adduunka ugu dhaqaalaha badan marka la eego wax soo saarka gudaha nominal GDP-ga waad ku mahadsantahay